Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dalka Turkiga waa wadan ku yaala laba qaaradood, wuxuuna dhacaa galbeedka qaaradda Aasiya iyo koonfurta bari ee Yurub. Baaxaddiisu waxa ay gaaraysaa 783,356 kiiloomitir iskuweer. Caasimadiisa waxaa lagu magacaabaa Ankara. Tirada dadka Turkiga waxaa lagu qiyaasaa celcelis ahaan 83 milyan oo qof. Dalka Turkiga waxaa lagu tiriyaa dalalka farakutiriska ah ee leh taariikhda kumanaanka sano jirtay, iyadoo ahayd dalkii hogaaminayay ummadda Islaamka muddo gaaraysa 600 oo sano, sidoo kale ahaa dhulkii caasimadda u ahayd boqortooyadii ugu dambeysay boqortooyooyinka Islaamka soo maray kuwoodii ugu awoodda badnaa. Turkiga waxa uu Eebbe ku galladay dhul aad u bilic wanaagsan, sidoo kalena leh mid ka mid ah biyo-mareennada ugu istiraatiijisan caalamka. Dalka Turkiga waqooyiga waxaa xuduud kala wadaaga Georgia iyo Badda Madow, koonfurna waxaa ka xiga Badda Dhexe iyo Suuriya, Ciraaq, Jasiiradda Qubrus oo ay xeeb wadaag yihiin, barina waxaa ka xiga Iiraan iyo Armenia. Taariikh kooban oo ku saabsan dalka Turkiga. Waxaa dhidibada loo taagay Jamhuuriyadda Turkiga sanadkii 1923, xilligaasi oo ay burburtay khilaafadii Cusmaaniyiinta oo ay ahayd Turkiga xarunteeda, waxaana la aasaasay kadib isbeddello isdaba joog ah oo ay la kulantay. Waxaana sanadkii 1909 afgembi lagu sameeyay suldaankii ugu dambeeyay khilaafadii Cusmaaniyiinta, Cabdilxamiid kii labaad. Sanadkii 1923 waxaa si dhammaad ah meesha looga saaray khilaafadii Cusmaaniyiinta. Mustafa Kemal Atatürkna waxaa loo magacaabay madaxweynaha Turkiyada cusub. Sanadkii 1924 waxaa meesha laga saaray dastuurka Islaamiga ahaa ee khilaafadii Cusmaaniyiinta ku maamuleysay muddo nus qarni ah dalalka hoos imaanayay. Taas beddelkeedana waxaa lagu beddelay dastuur cilmaani ah oo ilaa hadda lagu maamulo dalka. Sanadkii 1928 waxaa loo beddelay xarfaha wax lagu qoro xuruufta Laatiiniga, iyadoo markii hore lagu qori jiray xuruufta Carabiga. Sanadkii 1929 waxaa meesha laga saaray iskooladii iyo goobihii waxbarasho ee lagu baran jiray luqadda Carabiga iyo Farisiga. Xaqiiqooyinka ku saabsan wadanka Turkiga. Waxaa lagu tiriyaa dalka Turkiga wadamada ugu masaajidada badan caalamka, waxaana dhulkiisa ku yaala 82,693 masaajid. Waxayna masaajidada ugu badan ku yaalaan magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu baaxadda weyn dalka Turkiga uguna dadka badan. Masaajidadan ayaa sidoo kale leh kuwo loo dalxiis tago, sida masaajidka Sultan Ahmed oo ah mid ka mid ah masaajidada ugu faca weyn dalkaasi, isagoo la dhameeyay dhismihiisa sanadkii 1616 miilaadiga. Waxaana sanad walba u dalxiis taga malaayiin qof oo ka kala socda dhammaan daafaha adduunka si ay u soo daawadaan bilicda masaajidka. Aeroboortka ugu weyn adduunka. Horaantii sanadka 2019 waxaa la daahfuray dalka Turkiga aeroboortkii ugu weynaa ee abid aadamuhu ka dhiso dhulka, waxaana sanad walba lagu qiyaasay inay ka dhoofaan 37 milyan oo qof. Aeroboortkan ayaa ah albaab isku xira 3 qaaradood sida Aasiya, Yurub iyo Afrika, sidoo kalena waxaa ka howlgala in ka badan 100,000 oo qof. Istanbul, magaaladii kulmisay labada qaaradood. Magaalada Istanbul waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu bilicda wanaagsan adduunka, waxayna hoy u tahay 16 milyan oo qof, kaasoo ka dhigaysa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan adduunka. Waxayna isku xirtaa qaaradaha Aasiya iyo Yurub. Magaaladan ayaa sidoo kale horey u ahaan jirtay magaalo ay loolan ugu jireen dhammaan boqortooyooyinkii soo maray adduunka, heer uu Napoleon Bonaparte uu yiri, haddii adduunka dowlad ahaan lahaa, Istanbul caasimadda ayay noqon lahayd. Qofka taga Turkiga waxa ugu horeeya ee la yaab ku noqonaya sida ay ugu adag yihiin Turkida luqadooda, waxaana adkaanaysa inaad hesho qof ku hadlaya luqadda ajnabiga ah noocay rabta ha noqotee, taasoo ka dhigaysa luqadda Turkiga mid ka mid ah luqadaha ugu kobaca badan adduunka. Waxaa ku hadla luqadda Turkiga in ka badan 80 milyan oo qof. Sigaarka iyo shaahu waxay u yihiin nolosha Turkida mid joogto ah oo aanay ka maarmin, gaar ahaan shaaha. Waxaana hubaal ah in haddii aad aado dalkaasi aad aragtid sida ay Turkidu u cabaan labadan shay, waxaadna badanaa arkaysaa hooyo iyo aabe iyo ilmahooda oo sigaar wada cabaya.
waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar, taabana gambaleelka si uu kugu soo dhaco muuqaal walba oo aan soo dhigno. Fiidiyowan haddaa ka heshayna like garee. Mahadsanid.